xiddigaani Pablo Zabaleta ayaa bisha Janaayo sanadka 2019 qorsheynaya inuu ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee West Ham United. ciyaaryahan Pablo Zabaleta ayaa dalabyo gaar ah ka haysta qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska, waxaana uu sidoo kale uu diiday laba kooxood ee ka soo jeeda horyaalka waddankaasi China ee China Super League. Pablo Zabaleta ayaa West Ham United waxa uu ku biiray bishii July 1 sanadkii tagay 2017 heshiiska kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Pablo Zabaleta uu kula joogana waxa uu ka dhici doonaa 30 bishii lixaad ee sanadka 2019 ee fooda inagu haysa, laakiin ciidaanka ayaana markaa go'aansanaya inuu u dhaqaaqo horyaalka waddankaasi Talyaaniga. sidoo kale Pablo Zabaleta wuxuu dalabyo kale ka soo gaaraya kooxaha ka dhisan horyaalada Sacuudiga iyo Qatar. kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa waxay cabsi xoogan ka qabaan inay markaa lumiyaan xiddigooda Christian Eriksen oo ka mid ah halbowlayaasha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. ciyaaryahankani Christian Eriksen ayaa waxaa hadaladiisa ay ku bateen horyaalka liigaha waddankaasi Isbaanishka, waxaana wada doonaya Barcelona iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid. labada kooxoodba Barca iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay aad u baadigoobayeen bilihii ugu dambeeyay ciyaartoy ka ciyaara qaybta qadka dhexe, waxaana Christian Eriksen la sheegay inuu markaa u qalbay u soo dhaqaaqista mid ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaasi Spain sida Real Madrid iyo Barcelona. wararka qaar ayaa xusaya in laacibkan Christian Eriksen uu markaa ku qanacsan yahay in waqti kale uu la sii qaato kooxdiisa, maadaama laacibkan uu dhashay waddankaasi Denmark ee Christian Eriksen ay doonayaan maamulka Tottenham in uusan ka dhaqaaqin xil ciyaareedka soo socda kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Christian Eriksen ayaa kooxda Tottenham ku biiray 30 bishii Agoosto ee sanadkii 2013. heshiiska kooxdaasina wuxuu ka dhici doonaa bishii lixaad ee sanadka 2020. kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ee ka dhisan horyaalka waddanka Talyaanigana waxay u dhaqaaqayaan da'yarka kooxda Borussia Dortmund ee Sancho. laacibkani ayaa wuxuu ka mid noqonayaa da'yarta uga hadalhaynta badan suuqa, waxaana ciyaaryahankani uu sheegay inuusan ka dhaqaaqi doonin kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund. tan iyo xilliga uu ku biiray kooxdaasina wuxuu la soo baxay ciyaar cajiib leh oo ay si weyn u soo jiiteen kooxaha tiradooda ka badan 10 kooxood. ciyaaryahankani Sancho ayaa waxa uu dhashay sanadkii 2000. laacibkani ayaana markaa ka faaruqay kooxda kubadda cagta Manchester City. kooxaha doonayaan waxaa ka mid ah kooxdiisa hore ee City, laakiin Juventus ayaa waxay qorsheynaysaa in 18 jirkaasi ee Sancho marka ay kula soo wareegaan adduun dhan 80 milyan oo lacagta Euroga, maadaama ciyaaryahankani sidoo kale ay xiiseynayso kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Faransiiska. ciyaaryahankani ayaana markaa xusay inuusan meelna kaga dhaqaaqi doonin kooxdiisa, maadaama ay jiraan dhowr kooxood ee ka dhisan horyaalka Ingiriiska oo xiise gaar u qaba 18 jirkaani Sancho. madaxda kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund waxa ay meesha ka saareen dalab walba ee ku aadan ciyaaryahankaasi Sancho in aysan markaa u fududaan doonin inuu ka dhaqaaqo Bundesliga waddankaasi Germany. Sancho ayaa kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund waxa uu ku biiray 31 Agoosto ee sanadkii tagay 2017. heshiiska kooxda Borussia Dortmund uu kula joogo ayaa kaga eeg bishii lixaad ee sanadka 2022, waxaana Juventus ay aaminsan yihiin in bisha Janaayo ay laacibkaasi Sancho ay kula soo wareegi doonaan adduun dhan 80 milyan oo lacagta Euroga.